السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتو كحرن جنال كينا عاوي الأوفيشيال دمان وسلامتين انت مالين وطاهنا مالين وناكسن انت دور وطاهنا دور وناكسن صباح وناكسن أنا وإنه هوين وناكسن أدبد وماتنتهين داوشدين إي قيمينتا فضلا هدي أذكر عصبتا جنالك ها 11 سبسكرايبتا كمباليكا نفرو سي أدمر والبقو نغطو كشيكيها يان لغاغا شيكين ادو افكا دول سارن aad baad u mahadsantiin caawo maxay idin haynaa caawo waxa idin hayaa barnaamij aad iga yaabiyay Soomaalidu waxbay buubuunisaa waxbay qaadqaadaa waxa jiray muuqaal mar hore soo baxay maalmo dhaxda soo baxay oo ka hadlaya qadarkiyo in qaaliladan fanaanada weyn ama xaqiiqa maanta waa weyn caawo waliba big respect oo haya waa qof aad ii soo jiitay qaaliladan muuqaalku kaga hadlayay qaaliladan ka soo jawaab celisay ka soo fal celisay muuqaalkaas wuxuu kaga hadlay in gabar la yiraahdo qaaliladan la xumeeyay saasoo kaga hadlay balse iyadii oo nool Soomaalida marba meel ay u qaaday laakiin iyadii oo nool ka soo jawaabtay muuqaalka iyada oo inoo sheegtay wax walba sidii u dhacayn iyo wax meesha jiray bal in yar muuqaalkaas aan ka yar daawano kadib ayaan ka wada hadli doonaa idinkaga faaleeyo sida wax u jiraan iyo sida wax u dhaceen anigoo rabo inaan gud maro noloshayda aniga shakhsi ahaanteyda inaan in yar ka hadlo horta dadka youtuberada oo dhahayo qaaliladan walaalkii qadarkeeyo video maxaa live soo galay soo qaadanayo oo waliba si qaldan u isticmaalayo dhahay qaaliladan oo ka carootay ama ka xanaaqday ama يعني انتي سولي بستي قدر كيو قبر كلا ايو كهالله يا ورطة ام فنان اهين تيدا كاليتو فنانة سنة كقاللادن ان لسيه بوينتي قوة هوري كهذا شيء قاللادن وحي كهذا شيء ان رق يوتيوبر او ان سوقاتين موقال كاسي يغو او كغا هادلي ان اما شيغي ان qadarkiyo qofka oo ka hadlaya taqaaladan fanaanada weyn in iyadoo soo labisatay la siin waayay abaalmarinta taana way beenisay oo waxa mar walba qurux badan wax walba soo qaadanayna inay noqdaan wax aan u meeldaynay bal in yaraasi sanadka qaaladan in la siiyay macna waa ka xumay inuu dhahay waa run laakiin gabadh oo ka hadlaya aniga ma qaaladan xaq dhiga magiciiga markuu sorry snap ayaa iska duubaya qadarkiyo gabadh oo leeyahay muuqaalka markay iska duubaysay snap ahayd malaha waa muuqaal ay jeclaysatay marka hore xagga ku soo duubto kadibna way soo qaadatay marka waxay soo duubo waxay ka hadlaysay in ay maaragtay waxan la sheegay iyo waxan la buubooninayo inaysan meesha oolin sidoo kale waxay aad uga hadashay muuqaalkeedu waa iska yara dheeraa ma doonayn in soo wada qaadano waxay kale ka hadashay in qofka la siiyay fanka xagga dumarka fanaanada ugu fiicnayd inay tahay fanaanada weyn in la siiyay fanaanada sanadka fanaanada weyn ee Yurub Cabdi Maxamed Yurub Genyo oo ah fanaanad aan aad u naqaano cod ahaan iyo wax walbana xaqiiq way u qalantaa hadii waxay si raacisay xitaa qaaliladan hadii ay ahayd qofka guuleystaha aniga hadii ahay codaynta aniga ku soo baxay waa ku faraxsanahay in walaashay la siiyo waxay muujisay tanaasul weyn waxay mudan tahay ku dayasho maanta fanaaniinta ma oran kareen way isnacib yihiin fanka fanaaniinta aad bay isku jecel yihiin waxaa jiraan in yar oo ka taliso kala taga fanaaniinta fanaan walba isagoo wax si ula jeeday ayaa si kale loo qaadayaa mana aha wax qurux badan tusaale ahaan waxaa kaloo jirto muuqaalkaas hore ee uu soo duubay qadarkiyo wuxuu kaga hadlayay inaan laga qayb galin iyo wax saas arkay showgaas la qabanayo qadar waxa ku dhihi la saaxib marka qaadaysay 100,000 oo Soomaaliya ku saacbisay ku soo taageertay kuna diyaar ahayd inay wili ku garbiyaan haduu walaalka soo baxay waa ina u hambaliyaysaa mar walba waxa jecelahay in tanaasul oo dhaco dadkina isku tanaasulaan hadii ay wax walba ma ahan maalin walba ina adiga guuleysanaysid macquul maaha taa macquul maaha maalin waa laga guuleysan karaa maalin waa guuleysan kartaa maalinta aad guuleysatid waxa jeceshahay in lagu wada sacbiyo maalinta laga guuleystana bal ogolow in aad adiguna markaa dadku u sacbisid qaaliladan run ahaantii waxay muujisay wallahi karti iyo
waxaana laga sheekeyn karin waa qofku dayasho mudan anu sida aan qabo waa qofku dayasho mudan qaaliladan waxaa ku dhigay qaaliladan haddii sanadkan guuleysan waad aragtay inta taageero aad leedahay sanadka dambe insha Allah waad guuleysan doontaa waliba adigoo waxaa jeclahay muuqaalka xiga ee sanadka soo bixi doono adigoo aad u qurux badan oo si qurux badan u labisan inaad ku guuleysan doontid inta maanta ku guuleysatana waxaan leenahay keep going hore u socda idinkana dadaal muujiya si aad u noqotaan sanadka dambe guuleystayaasha mar labaad halka aad kala socotaan waa Cawil Official waa channelkiina hadii waxa iga xusuusina hadii aad ku cusub tahay subscribe garee like share iyo comment sida aad u aragtaan mar walba nala wadaaga fikirkiina aad baan idin jecelnahay si qalbi aan waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada channelkiina Cawil Official aad baad u mahadsantiin waana kiin urjuf ah مع السلامة. Please subscribe channel kusoo bir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare